masjid ku yaala waddankaasi Malaysia ayaa dalxiisayaasha laga mamnuucay inay booqdaan kadib markii ay laba haweena oo loo maleeyay inay ajaanib yihiin ay muuqaal iska duubeen anshax darra oo ay ku faafiyeen baraha bulshada. labadani haweena waxay xidhnaayeen dhar gaagaaban oo jidhkooda muujinaya. waxay muuqaalka iska duubeen iyaga oo qoobka ciyaar ku dhex sameynaya masjidkaasi oo lagu magacaabo Kota Kinabalu oo ku yaala jasiiradda Borneo. hay'adaha ay khusayso arrintaasi ayaa waxa ay ku guda jireen sidii loo soo saari lahaa haweenkaasi cidda ay yihiin. ugu dambeyntiina waxay ogaadeen inay haayeen haween ajaanib ah oo ka soo jeeda bariga Aasiya. mas'uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sabah ayaa waxa uu sheegay in muuqaalkaasi uu yahay mid muujinaya ixtiraam la'aan ay u hayaan dadkaasi diinta Islaamka. maamulaha masjidka ayaa waxa uu sheegay in gaadiidka shacabka aan waqtigani loo ogolayn inay halkaasi keenaan dad dambe oo dalxiisayaal ah. wuxuuna intaasi ku daray in wadahadallo ay u socdaan wakaaladaha ka shaqeeya arrimaha dalxiiska si looga hortago dhacdooyinka noocaasi ah. dalxiisayaasha booqanaya masjidkaasi ku yaala dalka Malaysia waxaan kula talinayaa ayuu yidhi inay soo xidhaan dhar asturan. dhacdadani ma aha markii ugu horeysay ay ka dhacdo gobolka Sabah ee waddankaasi Malaysia oo bulshada dhexdeeda ku abuurta niyad jab iyo walwal.